Soomaaliya oo shalay wareejisay mid ka mid ah hantideedii mid ugu qaalisaneed abid soo martaa laba dal bisa caalamka haysato Ukraine iyo Soomaaliya dal kale ma haysato laakiin shalay ayay ku wareejiyeen gobol ka mid ah gobolada America ma ahan dawladda America ya gobol ka mid ah gobolada America loo yaqaan West Virginia ayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka inta u baxay ayuu kheyraadkii dhan u saxiixay marka gobolkaas ay imaanay oo qaadanayo waana gobolka ugu faqiirsan America wuxuuna noqon doonaa mar dhow gobolka ugu taajirsan madaxweynahana viisada waa loo diiday bisha hore loo diiday hadda video call laga la hadlooyaa madaxweynaha fiiri video call laga saxiixoyaa hantidaadii dhan dawladda America saxa kuma laha gobol iyo dawladda macaamilooy hada ma aaminaysid waxa kala hadlooy waa gobol aan ku dhahay iyo dawladda Soomaaliya macaamilooy kheyraadkaagi dhan ayay ku wareejiyeen ha kheyraadkii ugu muhiimsanaa war laba wadan bis ah leh kheyraadka la wareejiy laba wadan bis ah haysta caalamka midna waa Ukraine midna waa Soomaaliya Ukraine waa arkaysay inuu ka saxiixday Donald Trump asoo caawinay ma arag soo ula hadlayo waa maqlaysaa umaleena dhiga soo u bahdilay waa arkaysay anaga xilligan sababta kheyraadkeena lagu wareejinayo gobol maxay tahay why how anaga gobol ula macaamilayna teeda kale madaxweynaha xilkaaga waa dhamaadee kontraktiga xilligan saxiixoosid maxaa waa kheyraadkan aadiiwoosid xilkaaga waa dhamaaday adiga kheyraad ina hadda saxiixid mamnuuc waay hala soo celiyo waxaas saxiixda la soo celiyo maxay tahay waxaan war kheyraadku saxiixay waa unique caalamka laga ma helo laba wadan bis waay waa Ukraine iyo Soomaaliya Ukraine already America gacanta ku dhigay uu daldalan way hadda Ruuska rabay inuu qaato America afiiqan way hadda wixii dhan okay anaga kheyraadkeeni ugu muhiimsana hadda gobol gacanta loo geliyo gobol ma ahan dawladda America hata gobol ka tirsan la ilaaha illallah wali waa gobolka ugu faqiirsan America oo dhan waa soo baari kartaa kheyraadkaagi ugu muhiimsana waa waliba gaaska iyo shidaalka iyo waxaan oo dhan ka qaalisan macdanta la wareejiyay hadda wallahi billahi ta'ala arintan way adagtahay madaxweynaha Soomaaliya rabay inuu America aado asaga viisada loo diiday bil ka hor asaga rabay inuu soo saxiixa viisada loo diiday bil ka hor laakiin hadda ra'iisul wasaare ku xigeenka baxay oo wixii dhan soo saxiixay teeda kale Turkiga in la siiyay saddex ceel oo shidaal anaga waa naga la khariy waxaan u maleynaynay Turkiga in contract la galay aan u maleynaynay Turkiga waa la siiyay yaa loo raacay ceelasha shidaalka laga heli karo dalkeena waa 268 block oo badda ah Turkiga waxa la siiyay 3 block kaliya Turkiga waxa la siiyay 3 block kaliya inta kale wali waa diyaar marka Turkiga iyo Mareykan iyo cid kaleba Soomaaliya diyaar ay u tahay mataqaana inay ila falgasho tani waa talaabadii ugu horeysay waxaan rajaynaynaa inay noqoto talaabo u furta fursad u furta Soomaaliya in kheyraadkeeda macdanaha kala duwan ee qaaliga ah iyo petroolkaba ay shirkadaha Mareykanka ee waaweyn ay u helaan fursad haddaadan hore ogeyn hadda ogow 5% in lagu siiyo Turkiga adiga ku gartay 5% Turkiga ku gartay adiga walaalkay asalasi waa maqli cadeen aan ku daara sug iswaalin in la siiyay Turkiga cadeen rasmi aan ku daara ma ku xumay kheyraadkaaga ugu muhiimsanaa marka America ma ahane gobol ka tirsan gacanta loo geliyo walaalkay gobolkaas la rabaa handa lagu ifiyo madaxweynaha wuxuu ka faa'iido yani ma aqaani walaalow madaxweynaha wax ma baranin miya asaga caadi ah way ka waran askarta baastada biyaha loogu shubayaa daacadka ahba are you okay